nafsi ah ayaa jeebkiisa $100 ka soo bixiyay wuxuuna ardaydiisa weydiiyey yaa u baahan dhammaantooda gacanta ayay kor u taageen lacagtii ayaa gacantiisa si xoogan ugu qabtay wuuna kaduuday uuna isku jajabiyey ardaydii ayuu weydiiyey wuxuuna ku yiri yaa u baahan dhammaantooda gacanta ayay wada taageen lacagtii ayuu dhulka ku tuuray wuuna ku istaagay kadib lacagtii oo wasakhaysan oo dhulka taala ayuu weydiiyey ardaydii ayuu ku yiri yaa u baahan ardaydii oo dhan gacanta ay wada taageen markaasuu dhakhtarkii cilmi nafsiga ahaa ardaydiisa ku yiri markasta lacagta muuqeeda isbedelo qiimaheedu isma bedelo wixii ay dhib soo martayna saameyn kuma yeelanayso haddaba adiga si kastoo aad xaqiraad ula kulanto waxaa waajib kugu ah inaad aamintid in xaqiiqdii qiimahaaga uu ahaa aanan weli la taaban aan la dhaawici karin noqo mid ku kalsoon allah dadka waxay ku leeyihiin hebel waa maskiin alla ayuu leeyahay dadka ayagu ayaa masaakiin ah sababtoo ah qofkii allah haysto wax walba ayuu haystaa waxaa ceeb ah in aad ku faanto wax aadan adiga samaynin quruxda ha ku faanin adiga ma abuurin abtirkaaga iyo qabiilkaaga ha ku faanin adiga ma dooran ku faan akhlaaqdaada sababtoo ah akhlaaqdaada adiga ayaa samaysatay welwelka iyo murugta sida ay kuu gilgilayaan waa sida kursi aad ku fadhido oo luuxanaya oo kale kursigaasi maanta oo dhan wuu ku ruxayaa laakiin meelna kuuma kaxaynayo booskaadii ayaad weli fadhidaa dadka kale ha kula dhaqmin boodbood iyo caruurnimo sababtoo ah dadkoo dhan ma ahan sida hooyadaada oo kuma fahmayaan dadka raaligelintiisa waa yool iyo ulajeedo aan weli la gaarin dadka waxaa ka mid ah qaar aad darajo mudanayso haddii aad la doodo waxaa jira qaar oo aad darajo ku mudanayso inaad ka aamusto shay aadan indhahaaga ku arkin weligaaga afka ha ugu marqaati kicin haweeneyda haddii ay ooyso ogow wax unbay weyday laakiin ogow ninka hadduu ooyo wax kasta ayuu waayey qofka hamiga sare u saaxiibka ah waxa uu ka faa'iidaystaa noloshiisa inka badan intuu ka faa'iidaysto waqtigiisa biyuhu waa waxa ugu jilacsan haddana waxay dilaaciyaan dhulka waxay dhaqaajiyaan dhagaxaan waxayna dejin karaan markab taasi waxay si cad kuu tusin kartaa mabda' ah in dabacsanaan iyo deganaan kaga guulaysan kartid wax adag wanaaggu waa maagashada qudha weligiisa lagu qasaarin ogow haddaad u sheegto qof sirtaada waxaad siisay waran uu kugu dili doono maalin maalmaha ka mid ah geedku waxaa lagu qiimeeyaa miraha iyo harka uu bixiyo bani aadamkana waxaa lagu qiimeeyaa ficilada uu sameeyo farxaddu waxay leedahay laba waddo oo asal ah waxayna kala yihiin furfurnaan iyo wanaag noloshu waa sida muuqata haddii aad ku eegtid weji xun waxay kugu soo celinaysaa weji xun balse haddii dhoola cadeen aad ku eegtid waxay kugu soo celinaysaa dhoola cadeen asxaabta ereyada waxaa iskale samil yare ficilkani yaa iskale Cabdallah2 insha Allah باذن الله الكريم sidaas iyo nabadgelyo ayaan rajaynaynaa haduu ilaahay raali ka noqdana khayr iyo bashbash iyo barwaaqo اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله.